Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo mar kale iyo muuqaal cusub. In badan janaalka muuqaal ma soo gelin. Runtiina aad mashquulka iyo aad u badan. Taasi ayaa keenaysa in bishii hal soo geli laga yaabo in hal muuqaal. Soo hadda waxaan rajeynayaa in asbuucii 3 muuqaal aan sameeyo. Hadirtaan ayaa janaalka soo jeestay runtii. Asxaabta janaalka subscribe saartana aad iyo aad u mahadsan yihiin. Kuwa nuuc cusub waxaan rajeynayaa in janaalka subscribe saartaan. Sidoo kale tan ay gambalelkaas furtaan si muuqaal walba halkaan soo gelino si uu soo dhaco. Muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan fiiri doonaa lacagaha cryptocurrency-ga project cusub oo 24 saac iyo project cusub 24 saac erka qabsaday projectkaas wuxuu yahay waa ApeCoin. Lacagtan ApeCoin dhaho runtii 24 saac u dambeeyay social media aad u qabsatay. Haddii aan fiirno Twitter-keeda waxaan kula talin lahaa in haddii aan Twitter lahayn Twitter samaysto halkaan waxaa kala socon kartaa. Sidoo kale waxaa ku darsanaysaa dadka lacagaha crypto ka hadlo iyo dadka NFT ka hadlo. So halkaan walba kala socon kartaa. Lacagtan 24 saac u dambeeyay soo baxday. Akoonkan soo jeeday 24 saac gudaheeda waxaa ku biirtay 113,000. waxaana dareemi kartaa 24 hours waxaan dhammayn 24 hours ama 24 hours waxaan dhammayn in yacni 113,000 ay ku biirto akoonkooda. waxaan dareemaysaa sida lacagtan loo xiiseenayo sida hawada u gali doonto. Sidoo kale tan lacagtan isla saacada 24 saac ayadoo hawada ku jirto istii waxaa lagu soo daray crypto.com. soo jeedin lacagtan waxaa lagu soo daray listi crypto.com. sidoo kale Binance ayadana lagu soo daray Coinbase soo jeedin ayadana waxaa lagu soo daray 3 saac u dambeysay. So hadda waxaad ka heli kartaa Coinbase, Binance yacni all haddii aan fiirino marketka. So haddii aan fiirino market cap-ka hadda lacagta waxay maraysaa $8 haddii dartaa maraysaa. So meelaha aad ka heli kartaa haddii aan fiirino logodeeda sidaan ayay u taalaa. So company project ama project cusub soo jeed 24 saac u dambeeyay yacni ayada loo hadal hayaa meel walba haddii Twitter meel walba kiish lacagtan ayaa la wada hayaa ayaa hadalkeed la hayaa 24 saac u dambeysay 24 saac u dambeysay lacagtan 700% kor u kacay. ujeedid kaalinta koowaad ee ku jirta hadirtaan ayaa laga soo bixiyay kaalinta koowaad hadda ay soo gashay kaalinta labaad. So ApeCoin maxay tahay maxaa loo isticmaali doonaa haddii aad gudaha fiirisid halkaan waxaa lagu sii ogaan kartaa. Aniga ma financial advisor. So waxaan ku soo gudbinayaa oo dhan wax aniga baaritaan ku soo sameeyay oo aan kula wadaagay fikradeyda. marka wax walba aad maalgelin ku samaysanaysid iska hubi aadna baar research badan ku sameey kadib maalgasho. So hadda waxaan kula wadaagayo in wax aniga fikradeyda oo kaliya. So hadda halkii xab wuxuu joogaa $8 u jeedid halkaan aad ka akhrisan kartaa waa maxay ApeCoin iyo muxuu yahay iyo waxa qof iskale kula halkaan ka ogaan kartaa. waa decentralized waxaana lacagtaani loo isticmaali doonaa Web3 metaverse Web3. sidoo kale waxaa loo isticmaali doonaa lacagtaani suuqa ugu weyn NFT-ga sida hadda OpenSea oo kaleeto waxaa loo isticmaalaa lacagtan la yaqaano Ethereum iyo Solana. Haddii fiirisid waxaan dhan waxaa loo isticmaalaa waxay tahay waa Ethereum badanaa lacagaha NFT lagu kala gato waa Ethereum. suuqan NFT-gana muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa sida u samaysan lahayd NFT adiga aad leedahay sida suuqan aad ugu soo geli lahayd ama suuqyada kaleetaba sida MetaMask aad ugu xiran lahayd. So waxaas oo dhan muuqaal full ayaan kasoo sameyn doonaa. waxaan rajeynayaa in janaalka aad ka faa'iidi doontaan hadda waalid insha Allah. waxaan rajeynayaa janaalka subscribe saartaan. So lacagta waxaan rajeynayaa la socod doontaa inaana ku haya hadirtaan waxay live ka tahay dhammaan suuqyada oo dhan balse weli trading view looma soo fasaxin marka saacadaha soo socda laga soo fasaxi doonaa. So waxaan kala rabaa inaan ku tuso lacagtan waa lacag mustaqbal Ethereum hadda waa 2,800 waxaa ognahay 5,000 ka soo laabatay 5,000 marka soo noqotay. marka hore muuqaal uu sii hadlay lacagaha mustaqbalka leh oo la maalgashto muuqaal kastaadan daawanay soo daawo waa kana fursadaha muuqaalkaasi waa kana $100 ku maalgasho muuqaalan kaga hadlay qofkan lacag haysanin iyo lacag ugu maalgashan lahayd sida ugu faa'iido lahayd. So lacagahan oo dhan hadirtaan qaar hadirtaan dhulka soo degay xilliga ugu fiican oo lacagaha maalgashto waxay tahay markay dhulka soo degaan ay soo daataan. hadda shan waxa u soo bi hadirtaan qaar hadirtaan green soo jeedi qaar badan hadda wada green laakiin 3 isbuuc u dambeysay lacagahan waxay wada ahaayeen red sababto dhulkay soo galeen hadirtaan ay soo kabsanayaan. marka lacagta XRP ayna ku hay Solana sidoo kale
Cardano waa lacagaha raqiiska oo aad maalgashan karto. Sidoo kale Polygon waa lacagta kaliya aan aaminsanahay in mustaqbal fiican u leh, sababtoo ah lacagtani wax badan ayaa loo isticmaali doonaa Web3 iyo suuqan. Sida ujeed lacagta waxaa lagu kala badashtaa suuqan loo yaqaano NFT. hadirtaan ka hadlaya sida aad ugu xiran lahayd NFT-gaaga. So gas fee kaama rabto, badan kaama rabto, gas fee kaama rabto. lacagta Ethereum ujeedid waxay kaa rabtaa gas fee. waxaa laga qaadaa gas fee aa bixinaysa mar walbo. marka lacagtan Polygon ayaa mustaqbal leh, waan raqiisanta. soo jeeda waa $1.45. oo lacagta ayadana mustaqbal fiican ayay leedahay, wayna kici doontaa. waa lacag aaminsanaya kamid tahay lacagtaasi. So VeChain ayadana sidoo kale waa lacag fiican oo haddana raqiis leh, oona maxaa la dhahaa, oona mustaqbal leh. ayadana inaha ku hay VeChain waxaad ku maalgashan karto, ku maalgasho. balse intaadan maalgashan wax walba research ku samee, iska fiiri, iska hubi xilliga la maalgashtay xilli kala jirto. mar walba aa maalgashanaysidna trading fee la soco. dadaa saacada gudaheeda lacagana ujeedid lacag badan kaga sameeya, dakhli badan kaga sameeya. sababtoo ah wayna fiican tahay in analyzing aad barato si suuqyadahan lacagaha lagu analyze gareeyo. kulli haddii aad heer forex haddii aad tahay fahmaysaa suuqan. muuqaalka ku xigna waxaa ka dhigi doonaa sida NFT yaa leedahay u samaysan lahayd, u samaysan lahayd. sidoo kale sida suuqa u soo geli lahayd, sida suuqa u weyn u soo geli lahayd. MetaMask ugu xiran lahayd way soo socdaan. so haddii ay tahay marka khadkaanaga culus bali muuqaalka halkaan ku ekeenay inuu dheeraado marabo. marka xarjiin lacagana inaad ku heli doontaan oo aad la socon doontaan. halkaan kala soco suuqan aad kala socon kartaa CoinMarketCap-ka. waa halkaan ku soo dhigaa kuwa trendska ah, kuwa biggest gainerska recently added ah. more waa dhigi kartaa, halkaan aad kala socon kartaa. sidoo kale waxaa haddaadan Twitter sameyso kuna darso dadka caanka ah iyo dadka lacagahan ka hadlo iyo dadka NFT ka hadlo. waxaan rajeynayaa inaad la socon doontaa adduunka maanta sida uu shaqeeyo. waqtigaaga inaad ku mashquulin meel cidla ah iyo waxba ka faa'iideynin. maanta fursad badan ayaa jira aad lacag ku samayn karto adigoo xaafadaada jooga. marka waxaan rajeynayaa inaad fursadaas ka faa'iideysan doontaan. sidoo kaleetana Telegramka hoose linkiisa soo dhigi doonaa, kusoo biira, halkaasna iskala socon doonaa. wax walba su'aalaad qabtana halkaas kasoo weydiiyo, waana kaga soo jawaabi doonaa. sidoo kaleetan dhammaanteen waan ku sheekaysan doonaa halkaas. waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.